الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله اصطفى أما بعد إخوتي في العقيدة marka ugu horeysa waxaan isku dardaarmaynaa taqwada Allah subhanahu wa ta'ala maxay yeelay waa shayga ugu wanaagsan oo adduunyadan aan ka qaadano khudbadeena maanta waxay ku daba taagan tahay khudbadii hore oo aan kaga hadlaynay dunuubta raadka ay ku leedahay qofka shakhsiga iyo ummadda oo dhan raadka ay ku reebaysa dhibkiisa ama atharkaas ayaan ku daba taagannahay oo ay qofka dilaysa adduunyadan qalbigiisi tii aakharana ay ka halaynayso ilaahi subhanahu wa ta'ala quraankiisa ayuu in badan ugu sheegay arintaas iyada qofkii dunuubtiisa naftiisa hawadiisa ay u horseedana waa qof uu shaydaan duufsaday dunuubta waxay keentaa horay dhowr xabaan uga soo hadalnay arrimood ay keento waxa kamid ah dunuubta waxay keento raadka xun ah oo ummadda kaga tagto in dhulka lisla gooyo zilzaal uu dhaco dhul gariir inuu dhaco dunuub ayaa sabab u ah sababta keentayna kamid tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala suuratu ankabut markuu ka soo sheekeeyay ummadihii qooqay ee xad gudbay ilaahay wuxuu yiri fa kullan akhadna mid kasto ayaga kamida waan qabanay dambigiisaanan ku qabanay dambigu sameeyay uu asaga gacmihiisa ku sameeyay baan ku qabanay waxa kamida kuwa aan duufaan ku soo dirnay dabayl aan ku sii deynay waxa kamida kuwa marka waxa way lagu qayliyay oo malagu ku qayliyo saa ku baabay waxa kamida kuwa dhulka la gooyay sababtana maxay ahayd dambi ay kasbadeen waxa kamida kuwa biyo lagu maasheeyay oo lagu qarqiyay ilaahay markuu wuxuu yiri wama kana Allahu liyadlimuhum ilaahay ma dulminin laakiin waxay ahaayeen kuwa naftooda dulmiyo hadii hadaba ummadii hore ilaahay uu saa u ciqaabay annaga hadaan dambi sameeyno ciqaabkaas oo nagu ma dhacayo ciqaabkii ummadii hore helay annagana soo nama helahayo haaway arinta dambi hadaan la nimaadno oo ilaahay kitaabkiisa daba marno dhul gariirkaas oo hadaba aragteen oo meelo badan ka dhacayo dhulkool isla gooyo ayaa marka dhacayso dambigaas sababtiisa aan sameeynayno nabigeena sallallahu alayhi wa sallam wuxuu noo sheegay ummadan haday raadkii ummadihii la halaagay raacdo in ayadan dhulka la gooyin doono oo nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay imam tirmidhi hadithu soo saaray hadithki imran ibn husayn radiyallahu anhu fi hadhihi al-umma oo ummadan nabi maxamed ah waxa ahaan doono oo ummadan ku dhici doono ama ummatu dacwa ha noqoto ama ijaaba ha noqoto ummadan waxa ka dhaxdhici doono khasfun waxa dhici doona in dhulka la isla jaro wa maskhun illa suurad badalo oo suuradaadiba la badalo suuradan yeer lagu badalo ama doofaar lagu badalo iyo inay qadfi lagu sameeyo dhagaxaan lagu soo daayo cadaab ilaahay korka uga soo dejiyo ninba wuxuu yiri rasuulka ilaahay oo saxaabada kamid ah mata daak goorma way arintaas markaas ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri idha dhaharatil ghaynat gabdhaha heesahayo ee qaynaadka markay soo banbaxaan wal maasif kabinkana la tumo la qaraaco wa shuribatil khumur khamradana la cabo oo sidii caanihi loo dhamo markaas ayada ayay ciqaabkaas u imaan haya war qaynaad ma hayna mujtamacayna u laabano ummad kale intaan la gaarin oo aanan ummad kale ku foofin Soomaali hadaan nahay meeqa maanta heesa oo gabdho oo isqaawinayo oo jirkooda mara khafiif intay qaataan banaanka iskeenayo barahaas internetkana dhex taagan meeqa way kam la adad wala xisaab hadii saddex meelood loo qaybiyo laba meel waxa way baraha bulshada ku fasahaadsan yihiin oo ka heesahayaan oo ku ciyaarahayaan jirkooda ayagoo marka waxa way qaawiye qaynaad iyagoo heesahayo oo rag ajnabi soo banbixinayo markay arintaas soo daahirto kabinkana la qaraaco kabinka xagu galay meel kasto ku jira ku diin sheegan ba haday maagan qaraacani wa halis marka khamrana
khamradana waxaa weeye sidii biyihii baa loo cabaa sidii biyihii ilaahay inuu u naxariistay mooyeene dhallinyarada waa lagu fasahaadsiiya maskaxday dhistaa rag le baa maskaxday dhistaa niman saaku ilaahay muxuu kaaga xarimay haddii maskax dhisayso bal maskaxday fuundaysa oo eber ka dhigtaa arrintaas dhallinyaradeena waan ku fasahaadsannahay haddaba waalidiinta waajibkana saaran waxaa weeye inaan arrintaa yacdhahno oon gacanta qabanno haddii kale ciqaabka ilaahay uu keeno wuuna wada camimahayaa nabigeena sala allahu calayhi wasalam xadiidkaas wuxuu tusinhayaa sheekh Utaymiin oo arrintaas tacliiqiyo wuxuu leeyahay zamaankan aan joogno waxaa weeye gabdhihii heesahayena way soo banbaxeen oo qaynaad ka ahaa macaasibtiina waaba la xalaalaystay waana arrin daahir ah guryaheennay bay dhex taallaa war meel kale ha u doonin tvgii bay kaaga dhex shidan tahay carruurtii baa fiirsanayso haweenkii baa fiirsanhay gurigaada markaad ka soo baxdo ama adoo fadhiyaaba laga yaaba gabadh heesaysa oo qaawan oo timaha rogaysa in lagu saaro ood shaahada iska cabto danba ka gelin danba aad ka gelin qureecdaada aad iska sii wadato hees baana kuu daaran bal adigaa madaxa la lulahayago aabbihii meeshuu madaxa ka lulay geel waxaa la yidhi maxaa weeye uu halihii waaweynaa ay ordeen maxaad u malaysa qaalmihii maxay samaynayaan dhidigii iyo qaalmihii yaraa maxaad samayn way beerraqaheen si fiican bay u ordaheen hadda aabbihii hadduu madaxa lulo hees saartay gabar qaawan uu ku raaxaysanhayo maxaad u malaysatay hooyadii iyo carruurtii yaray waa ka daroo dibi dhal weyto ee waxay maagaan bay samaynayaan haddaba dhallinyarada khaasatan maadiga iskaga badan heesaha waxaan ka dhiganay wax iska caadi ah baabuurkaan ka shidnaa guriguu nooga shidan yahay masaajidka intaan ku jirnaa hees naga dansantaa laga yaaba inay tahay cuquubaana ka imaan doonto nabigeena sal ly slam buu noo sheegay beenna ma ahaanayso nabiga xadiidkiisa waa yaqiin inay cuquubo soo degi haddaan arrintaas samayno waaban samaynaa haddaan siday u socotaan ku wadno iswarsi ma laha wuxuu yidhi waxaa la arkaa indhaha lagu arkaa toos tvgay ka shidan tahay wakti kasta suuqii dukaankii baabuurkii diyaaradii baa lagu shidaya hawada isagoo ku jira waxaa waye cisyaan aan samaynayna oo diyaaradii baa lagaga dhex shidi bal waaba laiskugu yeeri oo waxaaba jiraa leeyahay xaflad baa jirto soo bax oo macaasif iyo waxaa laiskugu yeerahayaa munkar nin aaban u soconino ka warhaynin baa waxaa leeyahay maxaa jiro bahal baa la qaban rabaa hees baa soo bixi rabta oo la qaban rabaa kuwa aan aadi rabin baa la wadi oo meesha la geyn oo haddana lacagtiis kusii bixin subxaana allah haddaba ilahay aan ka baqno guryaheenna waxa aan ka dahirno kitaabka qur-aanka aan ka shidno qowlka ilaahay ha ka shidnaada guriga carruurteenna arrintaas aan yac ka dhahna iyo haweenkeenna cibaad allah waxyaalaha ay keento dunuubta raadka xun oo ay keento waxaa ka mid ah inaan iskhilaafno iskhilaaf oo bal ismaan dhaafo wax isfahmo la waayo imaam axmed wuxuu soo saaray xadiid ibnu cumar nabigeena sal lla lay slam wuxuu leeyay waladii nafsu muxamadin biyadih allahay nafta nebi maxamed gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee ma tawaadda itnaani laba qof isma jeclaadaan oo fafuriqa baynahumaa haddana waxaa weeye ma kala tagaan oo lama kala geeyo oo iskuma cadhoodaan ilaa bidanbin waa un dembi sababtii oo yuxdiثu axaduhumaa mid ayaga kamide ayaa dembi sameeyey dembigaas sababtii baa waxaa maxabadii ilan maxabada waxaa lagu mutaysanhayey janna lagu mutaysanhayay sabcatun yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dilla ilaa dillah yaa ku jiray laba qof oo isku jeclaatay dar ilaahay soo kuma jirin janna lagu mutaysanhayay haddaba haddaad dembi la timid wixii janno geyn lahaa baa laga kala tuuray fafuriqa baynahumaa ilaa bidanbin yuxdiثu axaduhumaa mid ayaga kamida unbaa dembi la yimid meeqaa marka aan sanadkii saaxiib noqono haddana kala tegi meeqaa kam laa cadad walaa xisaaba cillada aan garan la-aan ahayba dembigaa sabab u ah annaga midkeen unbaa dembi ku dhacay min xaysu laa yadri ama haba u qasdo waxaa kalooy keentaa macaasida ummaddan waxay haystana waad ujeedaan ummaddeenna maanta say u kala tagsantay yaa naga badan ummadaha in isku caqiido oo inta leeg ma jirto adduunka ummad ka badan ummadda islaamka oo isku diin waxa isku diinaan ka hadlaya ma jirto adduunka iyagoo dhan waxaa waye way kala yihiin way kala socdaan annaga maxaana kala geeyey dunuubteennaa badatay kitaabka ilahina waan ka tagnay walidaalika markaad xaj ka tagto waad yaabaysaa ummadda maalinta carafo laga soo yaacayo inta baabuur saaran inta lug saaran dhagax haddaad turto qof madax kaga dhici dhulkaa dhan baa la buuxin
بدنا هدنا وبركة درنا كتاب إلهي بل هدنا وحاوي ورلق مولاي بل كاس ماشي لبيك الله وكوهيا أكوري ما سن كتاب إلهي لو دون كتري أولا معقول معها 2020 ولا مرة كتاب قرآن سعيد قال آخري معايا المسكح دي سوى ورلا فوندي كورال رقبة مسكح دي سكوك هذه يسوي حمالين عبغري إنه يهي أو مسكح وليه دين تيسيبها مركو مالها الخطورة أثارت إكانت الذنوب وحكم ذا عيدا أهان إن الله جبر مالتي بدر صحابة ويقول يستين قال بدن بالالاي تضباط بالدري أو سناديد قريش رقي قريش ووينا أبو جهل رقبة لوتكي أو مالنتا مركو حاوي مضح وضل الجري مالنتي وحدنا صحابة أيها تضباط اللي قدري والتضباط ما كشهيدي صوت محاكيني حاوي إلهي بكتاب كسكو شيء مالنتي أحد أيضا الصحابة دقال كي قالين أو بقالة اللي عيرسلي أو غنيمة اللي الرسان هيو رق أفرت النينا وعبد الله بن جبير وهو قامين هيو عبد الله بن جحش وعمرين هيو كر إساريين بور لساري بور تجبل الغماد اللي هذا والله ما قعدري بور لساري أفرت النين أو مرأة أو شيش كذا خطر وياها ماشى لساري وركو حالي هدان جبنا إيه هدان واحد جبينا ومدنا وهنو إيماننا ماشى صار هذا قالوا يمرك اللي جبيي أو ماشى هذا مسايد كوين لقد السي بورت الحق هذا اللي آديي أيا وحاد عي أفرتن كينين ماشى صار ربع إسقلاف ورجالوا ويجبته غنيمة للرسان هيا نيجارسي ده رقم ده نينكي رئيس كهاي لبي توانين وأسق لبي توان كوي توان كلا كسوه عليه أو ترى أمرك الرسول كان أمر ما خلافينه رجي كلوية عين لبي توان كين خالد بن وليد عمر كان سوء إسلامين أو كفر عمر كان كسوغان أيا قال أوجي من بورته عكتو مري لبي توان كين ماشي كدير قال بوجت مرك ما حد عاي مرك صحابة مرك وحاول تضباط صحابي با ما أنت ماشي كشيد النبي صلى الله عليه وسلم دول تسال جبي إلى سال جبي برتي بقى شيء كوفي دي برتا بقى شيء نبرك اللي قلفت لب كاسودن محاسبة بي لب كاسودن محاسبة بي خلاف كي أمر كالنبي قال خلافي معسية لليمت مخالفة الرسول بائماتي وأنا معسية وحي كانتي أثر حن أو إن لا جبه أو شهيد ركب بدل شهيدان إذا الصحابة هذا الكوفي عينين إيه ولا جبي ركب بدل ما ماشي كل شهيدي أو لا بين قدرت من راسي دجال لمان ويبرك حوالي دين تكرسي قادان حمزة ركبه كوبحي وماشي كل شهيدي مالنت سيدا صوت وحاكيني إلهي بقرآن كسنوق الشيء أولما أصابتكم مصيبة مركينا أصيبتي مصيبة محاولة ورق صحابة شهيدي إيش كنا ماذا قد أصبتم مثليها أيضا أكلاتنا هرادوا أصيبتين بالأيضا ميلو سارتين قالوا محيرة تضباط ما ديشين تضباط ما تسوق فالتين هراي بعدين كان أرنت أوفلسين لا صعود عليه وتصلية مركز وحاتنا قلتم أن هذا أرنت سيكون عادي أنا قالوا جوشة ودنيا حاجين نقتمت ورجب كان حقوق قيمة صحابة غيري وتحقيق ما تشهيدي مركز وحالي يقول هو من عند أنفسكم إذن كسبدي أو كنسدي نبي أمر كسب خلافتين صلى الله عليه وسلم إلهنا وحول بأود بوله وأودا مؤمنين تهدوا حد أوانيسان أو أيضا النوع عدينيسان أيضا قول لوته أو أن قول كبيرقينه إن دم بيان سميني أما أنا قيب نجميدا أي سميسي جوشي إسكو بدلي كرته جب إسكو بدلي كرته إيه هزيمة إمام أحمد وحصاصاري حديث ابن مسعود ورين هيو النبي صلى الله عليه وسلم مالين خطبة درجيدي مركز وحير يا معشر قريشي أرنتن يدينتن يهجامينتن أمر كذا إذن كهيو خدامنا إلهي كعاسنين إذن كان مدحض أمده هدانا إلهي كعاسنين هداد إلهي كعاسسان سو معها إلهي وحسود درها يا ضد إنجا حيوبيو دينتينا ضد كتكتان ملكي ضد إنجا حيوبيو أوداس إنجا قاتو أيا إيمان دونو مركز النبي صلى الله عليه وسلم لان أوهي أو حوب لهيد أيا ما يرح دي بكفيقي لان تو ما يرح ذاك بحي ما يرح دي بحاجة أطوري لانتينا يضع عبا صوهري مركز حويري كما يلحى هذا القضيب لان تنسال له أن أغديري
diirkii saarasaan ooga diiray ayaa idinkana niliiga diirahayaa markaasay nabiga sallallahu alayhi wasallam laantii markuu qubka ka diiray waxay soo baxday tii oo cad oo amlas ah yaslid mana abyadu yaslid iyadoo cad oo sibsibe baa soo baxday ilaan xubkii baa laga bixiyay qubkii baa laga saaray marka wuxuu yiri amarka arinta saasay idiga zuulaysaa haddii ilaahay kitaabkiisa ka tagtaan imaam sheekh albani wuxuu leeyahay fi silsila xadiis saxiixa soo xadiidkan tacliiqin hayo wuxuu yiri waxa ku sugan calam oo min calaami nubuwa ayaa ku sugan oo tusinayso khilaafada quraysh inay sanawaad badan haysatay kadibna maxaa yimid kitaabka ilaahay markay ka jeedsadeen ayaa laga faramaroojisto niman caajimaho waxa weeye cajami baa ka qaatay madaxtinimadii ilaa ay dulli iyo hawaan ummadda muslimiinta ay soo marto ilaa ilaahay intuu doono ayay soo martay ummaddana wuxuu leeyahay hadday rabto inay ummadda waagay ahayd ay ku noqoto xaalkii nebi maxamed sal alay wasalam oo u dardaarmay ku ogaa inay ku noqoto hadday rabto waa inay ilaahay u toobad keenaan kitaabkoodana ku dhaqmaan xadiidka baan kusoo gabagabaynaynaa jubayr ibnu nufayr nin la yidhahdo ayaa maalintii qubrus waddankan hadda qubrus la yidhahdo oo dalxiiska aad u aadaan maalintii la furtay turkiya agteedow dad badan oo muslimiin iyo غayr muslimiin oo isla degaan niman yunaaniyiin asalkooda niman atraag iyo qaybo kale oo eeshiyaanka kale way dhex degaan maalintii la furtay saxaabada furatay khilaafada Uthman radiyallahu anhu ayaa dadkii ilaan waa la qabsaday waa la kala geeyay markaasay ooyeen dadkii waa la kala bixiyo haweenkiina marka waxa laga dhigan wasaray baashi ay noqdeen waa la qafaashay ragiina gooni baa loo bixiyay caruurtii markii la kala bixiyay ay ooyeen ayagoo ooyi buu arkay Abu Darda marka oohin buu iskala fariistay fabaka Abu Darda baa ooyay jaalisan asagoo fadhi iyo isku ooyay waana saxaabi maalintan maxaa guuleystay muslimiin baa guuleysatay gaala la qabsaday oo laga qabsaday magaalada ilaahayeen meeshii la rabay inuu farxo oo beeraqo uu ooyin buu la fariistay Jubayr baa marka wuxuu yiri يا أبا درداء ما يبكيك يوم أعز الله مالين إلهي وأود المسلمين تسي أو قول أنسي ويما ما أنت محد وي مركز وحيد ويحك يا جبيرو ما أهون الخلق خلقي محا كلي دنبو يري إلهي أكتي سمحي أقول لي يديهن إذا هم تركوا أمره دينتي سمركي الديدان ألا اللي يدنان بدنا خلقي diinta ilaahay markay ka tagaan liidnaan badana wuxuu yiri ummadan waxay ahayd aan maanta qabsanay ummad awood leh oo mulki iyo boqornimo haysato ilaahay diintiisa markay ku caasiyeen oo diideen ilaa risaalo loo diray diinta soo galaalay markay diideen ayaa maanta ilaahay saa u duleeyay oo ayagoo isjecel la kala geynaya oo saa loo kala jiidaya taasaan ku ooyud ah haddii marka waxa diinta ilaahay aan ka tagno dulli iyo ihaanadan ku noolahay maan ku noolaanayna oo kalba mid waxa weeye sidii maag laga yeeran anagana aan gurisayn xadiidka marka waxa wuxuu nafaydayaa oo toos u taabanaya xaalka aan maanta anaga ku sugannahay maxaana keenay macaasida iyo kitaabka ilaahay oo ka tagnay Allah sallu wa sallimu ala man umirtum bis salati wa salam alayhi umuman bi qawlihi ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa radallahu ma'al khulafa'i al-arba' Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyati as-sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan ila yawm الدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اينما كانوا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ايها الناس ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا الى صلاتكم